السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحابة إذا شرفت له فامل كيغا رين حمد الناتشرال ساعات بندين وذا السلامي وانا يدو ذا مسكريي ايامها مشغول بانها marka dhamaantiin salaan sare baan idin leeyahay ku soo dhawaada xamda naturals maanta arrin yar oo maxaa la dhihi jiray faa'iidatu wadani miyaa la dhihi jiray baynu ka wada hadlaynaa arrin yar oo wadankeena ku saabsan iyo khayraadka wadankeena ka baxa oo xoogaa hordhiciisa ayaan maanta wax idinka taaban doonaa marka haddii alla idmayo horta tani waad ila garanaysaan maxay tahay tani maxay tahay tani waa milixdii dhulka hooyo waa milixdii saylac miyaad dhihi kartaa ama milixdii ma aragtay Soomaaliya meelo badan bay ka baxdaaye ama bariga xataa meelo badan bay iyadana ka baxdaa marka tani inay tii saylac taan u malaynayaa afaniga ahaa wadankayga hooyo waa jeclahay waana jeclahay khayraadkiisa iyo waxa ka soo baxay inaan isticmaalo balse si wanaagsan baanan u kala aqoonin marka insha Allah intaas hadaynu ka gudubno horta tani maanta waa milixdeena dhulka hooyo kawdaha dhulka hooyayna ka timi dhulka hooyana ka soo qaaday faa'iidadu maxay tahay weeyaan faa'iidadu waxa weeyaan milixdeena waa milix dhulkeena ka soo baxda dalkeena ka timaada buuraheena ay taaltaalaa ciidina kuma haysato qofku asaga iska soo guran kara ila tahay buuraha markuu joogo iyo meelaha ay ka baxdo iyo badaha agtooda meel laale maaragtay meesha ay ka baxdoba waa maaragtay waa fursad cajiib ah balse waxa ayna ka maqan inaga weeyaan masha Allah waxa weeyaan waxa inaga ka maqan Soomaali ahaan maxay tahay Soomaali ahaan waxa naga maqan waxa weeyaan fikrad saan ula imaan lahayn anna maanta tan ka hadlaayay waa taas fikrad ah milixdaanayto maxaynu maskaxdeenu intay shaqayso u habaysan weynay oo u dhoofin weynay oo wadamada aynu ugu dhoofin leeyna milixdan waa organic lama bedelin mashiin ma ay marin waa dhagaxanta waa rockska caadiya waa dhagaxantiyo caadiya waa sidii dhulka looga soo guray lama shaqin wax lagu sameeyay ma jirto wax warshada oo ay martay ma jirto ay jawaan baa lagu soo guray ciidi baa xataa ku taala laga soo guray marka ase Soomaali ahaan meel kastaba aynu ka joogno Soomaaliye war maskaxdeena waxa bedelay weeyaan wadankii waan tagay waxa haysata wax wadan kale laga keenay dadkuna waxay ku qanacsan yihiin wax wadan kale laga keenay wadamaduna waxay ku faanaan waxa wadankooda ka baxa waxa wadankooda ka baxa ayay wadamada ku faanaan wadamada waxa laga yaabaa laba shay kaliya u baxa say labada shay bay ku faanaan labada shay bay adduunweynuhu dhan gaarsiiyaan balse anagu milyan shay baynu haysanaa laakiin qaarkood xataa ma naqaano in la cuno oo laga faa'iideysto oo ma daawaad yihiin ama gaajada la iskaga biyo ma aynu naqaano xataa marka milixdeeda dib ugu noqdo milixdan hadda Boorame iyo Garowe labadaba aan tagay waxaan ku arkay milix wadamada qalaad ka timi sida wadamada Carabta ka timi oo caag ku jirta oo la shiiday caagaas lagu soo shubay waa la warshadeeyay waxa lagu daray maxaa la dhahaayay sumanyaal iyo wax maaragtay siday tani muhiim u tahay ama tani u wanaagsan tahay taasi uma wanaagsana xataa taa hadaa dhadhamisid tag wadnahay kaaga dhigaysa xanuun baa ku qabanaya durbada tan laakiin xataa waynu ognahay waynu cuni jirnay markaynu yaryarayn haddadan waan cunaa anigu waxaan u haystaa marba xabad yar baan afka gashtaa waxyaalaha aan u haysto waxyaalahaas ka mid ah wallahi waan banaansadaa marka lianna waa organic waa tabteedii wax lagu daray iyo wax warshada iyo wax la soo warshadeeyay midna ma jirto warshada markay maraan kiimikay mareen kulayl bay mareen gas iyo maaragtay wax badan baa lagu sameeyay oo ka dilaya manaafacaadku lahaa inkastoo aynu ognahay don't get me so wrong calaashan dadka qaar aysan durbaba Soomaalidu waxay u maleeyaan wax hadii la sheego waxaas ka daba dhacaan milix markastaba waa maadooyinka la iska ilaaliyo maaragtay in la badsado cunitaankeeda laakiin tan oo kale
وملح هذا وناكسن علشان استعمال مد وطن كله كتمي سبته وطن كعجيبة كبحضا كفائدة يسوي الخير وطن كمان تشوفه كفائدة يسو أنت مد عربها كتمي ولوسو سبي إدارة يطلقوا صار شوي الاستعمال يصير هذا كله صعب يسو تن شيدو يا شيدو دلا سماه كشبا مقاحي هذه درس كإيبي دت كإيبي ليبل إيه ستيكر وسما يسو كودكسو يا مركا وحوين dadka Soomaaliyeed hadana waxa u maleynaa maskaxda miyaan ka dawhaaranahay siyaasad ma doonayo inaan galo balse waynu u fududnahay waynu nugulnahay hebel oday hebel maaragtay suldaan hebel what do you call hebel wadan حتى maaragtay marka meel calamada Soomaaliya lagu gadayaa tagtid 100 calan baa arkaysaa ya 100 calan baad arkaysaa oo kala duduwan markaas confuse noqonaysaa ya wasdaha wadanku dhowr wadan oo Soomaaliya ku hareeraysan baa jira marka waxaas ku mashquulinaan ka wadaa pointiga uga jeeday waxaas aniga waxba igama galin dan heelana igama hayso balse pointiga uga jeedo waxa weeyaan inamada yaryar iyo wiilasha walaalaha gabdhaha dhalinyarada yaa jiilka maskaxda furan oo waliba wax bartay ku mashquula khayraadka dhulkiina ku mashquula midixdaadan ya shiido hagaagso habee adigu inaad dhoofisid oo Sacuudiga geysid oo ku qortid sea salt oo ku qortid warsho lama soo dhibaatay iyo maaragtay dib badan male waa noocyada u fiican dhiikarka xataa ya milixdaan oo kale nooca dhiikarka dhibta u badan u geysanaysa ma aha ya badan sea saltiga hadda waxay ka keenaan marka wadamada wastiga ka adeeganaysa wadamadaas Mareykanka iyo Yurubta iyo milixda saan oo kale ay waa qaali lama bahelaba meel qaar laga hela milix saan oo kale ma baarkaysid ya laana waa qaali ama waa online ka dalbatid ama wadamada maaragtay dukaamada la health shopka waxay dhahaan rock salt ama sea salt mid kale la yiraahdana way jirtaa waa tan la shiiday marka sasi qaali u dadka muhiim ugu tahay marka waxa weeyaan anaga Soomaali hadaan nahay waxaan naga maqan waxaan jecelnahay wax wadan kale ka soo baxay wadan kale wax ka yimi inaad jeclaato ma aha yees haday fursad ku gasho ka faa'iideyso balse waxaad haysatid oo cidna kugu haynin isticmaal ayada naqshadu samayso magac iyo ineeyo u yeelo maaragtay beecge maqaaxidaada aad ku gadasid milix carabaha laga keenay oo dhala yar ku jirto daldalasho saa loogu shubay waxba iisiga arag waxba quruxda arag nin baa soo qurxiyay nin baa iisi ka soo dhigay $3 bay joogtay tan ku arkay boorame dhala yar bay ku jirtaa mise $5 bay ahay garawa ka daalik ya marka tanina meel kasta ay taalaa kun shilin Soomaaliya ya baa lagu helayay maaragtay milixda Soomaalida in intan oo kale la eego bacir ku jirta maaragtay nuskiila camal balse u jaban tahay ka war ya marka way mid $3 u gadanaysa way mid wadan kale ka timi oo aadan ogeyn intay sanay soo joogtay oo aadan ogeyn waxa lagu soo sameeyay oo aadan ogeyn warshada soo baartay oo aadan ogeyn waxay difoostay leedahay abqataadi oo buurihii ka timi oo natural 100% natural 100% dabiici 100% hand picked laana gacanta lagu soo guray xataa warshad lagu soo guray aaba haysataay marka fiidiyowga maanta waa faa'iido ku socota aynu maskaxdeena furno dhulkeena waxa yaalana aynu ka faa'iideysano halka waxa kale oo iigu jira hadda saad u jeedaanba waxa weeyaan waa maxaa la dhahaa waa liki ama DC wakaas likihani ama DC-gani dhulka hooyo uu ka baxaya ana la ii soo guray kan waa qoyaan buu ahaya hadda uu qalay waa la ii soo guray kanina waa maxay waa geed xamarkii dhulka hooyo ya hadda anigu dhirtaan bartay laakiin nasiib daro kana kama sheekayn karo lianna ma soo baarin ma aqaanin wadankaygii waa ogahay in la isticmaalo oo nabarada qalajiyo laakiin wax la soo approve gareeyo oo dawladda intay soo approve gareystay oo maaragtay qolyaha herbalist-ga oo dhirta ku takhasusay dhaqaatiirtaas intay ka fariisteen ay wax ku soo qoreen ma aha iguma jiro laakiin Soomaali ahaan waa inaan ku raadaa waa inaan dadkii waaweynaa lala hadlaa waa in maaragtay laga soo dhuuxaa intuu wax qaban jiray laga soo guuriyaa so laakiin waxaan idinka wadaa 100 kilo geed oo ama Chinese ama maaragtay dir maaragtay wadamada Isbaanishka ka baxda ama wadamadaas
maraykanka ka baxda ama yurubta ama afrikada inta kaleba oo lasoo guuriyey oo laysu keenay oo geed kastaba laga hadlay oo geed kastaba maaragtay manaafacaadkiisa iyo isticmaalkiisa iyo suu yahay iyo meel xataa wadanka uu ka baxo baa lasoo qoraa yaa baa dhirta naloo dhigi jiray wadanka uu ka baxo iyo meesha oranjigiisu ka yimi maaragtay origin-kiisu meeshuu ahaa kow barta laga soo helo geedka ileen geed hadda kan waa la qaadi karaa waxaa lagu beeri karaa wadan kamida maaragtay wadamada kale wadan uusan ka bixin kaba soo qaad balse waa in la dhahaa Somali origin ya waa in la dhahaa origin-kiisu waa geed Somali ka yimi marka calaashan origin saasan ka wadaa marka fiirikani waa geed xamarkeeni waynu ognahay suu uu udgoon yahay waynu ognahay maaragtay aniga waxaan xasuustaa iyadoo maamooyin ka dhigtaan shaah oo kale shaaha lagu daro subagana ha lagu shiilo marka intaas bas baynu ka garanaynaa soo maaha balse dhirta lamida maxaa laga sameeyaa waxaa laga dhigtaa sida shaah oo kale inagu laakiin shaah markuu kan inoo galo waa mar caleen la waayay waxaan u malaynayaa dee duruuf dadka u geyso laakiin lama oga manaafacaadkiisa ya marka hadda waa wax u baahan maaragtay mar kaloo dheer in laga hadlo laakiin dadka wadamada horey u maray dhirtooda waxay ka dhigtaan saamun baa laga sameeyaa cataraa laga sameeyaa brofuuna laga sameeyaa boqolaal wax baa laga sameeyaa waxyaalaha wax lagu udgiyo oo dhan baa laga sameeyaa balse inagu nasiib daro waxa weeyaan maba ogin waxaynu ku maaragtay ku mashquulsannahay dhiro wadamo kale ka yimi hadda kahor baan supermarket baan soo galay Soomaaliya ku yaala markaasaan ku arkay geed la dhaho rosemary maadaama anigu waan dhirta jeclahay oo dee dhirtiina wax ka aqaan marka wallahi waan ku farxay aad baan ugu farxay markaan arkay qallayl buu ahaaye waan soo dafay waa soo iibsaday marka weliba anigu lacagtii meeshii lacag yar baan watay marka rosemarygii qalalnaa ayaan waxaan kusoo iibsaday wixii aan watay oo dhan supermarketka waxaan ka doonayayna waan ka tegay marka wixii haddaad manaafacaadkiisa garanaysid wax badan baad dhaafsanaysaa marka videoga insha Allah waan ka bixi doonaa videoyo badan oo faa'iidana waan soo gelinayaa laakiin dhulkeena waxa ka baxa waxa fiican inaynu ku faano inaynu hagaagsano inaynu aynu ku kalsoonaano ya dhir badan baynu haysanaa ubaxyaasheena in la helo dad ubaxyaashii soo bartay garanaya isticmaal wixii hadduusan sunahayn oo lagu dhimanaynin waa wax useful la isticmaalo ya adduunka wax la daadiyaa ma jirto ya Soomaalidu waxa la yiri hilibka markay qarshaan haafna way daadiyaan waxay dhahaan lama cuno oo kan waa kida laakiin carabtu macaal maskaxda macaal dhiiga xataa meel bay dhigataa ya anaguna waxaas waa maaragtay dee hilibkii bar ka mid ah la daadiyaaba marka horta maanta diiradda mid ay saaran waa milixda wadankeena hagaagsada dhalinyarooy aynu isticmaalno tadibada ka timiyaan la gabanin ganacsataduna ayaga lacag haystee way wanaagsanaan lahayd inay maaragtay waxa u dhug yeeshaan oo waxa dhulkooda keenay ay maaragtay waxa dhulkooda ka baxa intay ay beec geeyaan oo wadamada kale u geeyaan oo wadamada kale ay maaragtay ay u sameeyaan export waxa la yiraahdo maaragtay wadanka ka geyn wadan kale aad geyn shuruucda laga baahan yahay baa raacaysa waa wax easy laakiin wadan dhan oo la yiri wax uun ha soo galan laakiin wax oo milixda meel kasta bay wax oo faa'iidana yaysanba ka bixinba wax manaafacaad ayay ka bixin ya oo wax kasta waxaanu leenahay dhir badan waxaanu leenahay miro Somali maaragtay wax baynu leenahay oo wadankeena laga kaxayn karo marka insha Allah anigana waxa weeyaan videogan ka baxayay horta wad salaamantiin waa walaashin Xamdi Shukri qofka idin la hadlayay waa daliil iyo dhiirigelin videogaygu Allahumma salli ala Muhammad bartaadiga la socotaan waa Xamda Naturalis aniga waa dadaalka idinkana waa ducada soo duceeya aynu sayno aad ugu kala faa'iideysano wixii aan aqaan wixii ku soo kordhay wixii khibradayda aan idinku soo gudbiyo idinkuna sidoo kale maaragtay igu soo gudbiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subscribe like share gambaleelka taabo sidii aad u aragto wixii aan soo geliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh